gudoomiyaha magaalada Geedweyne ee gobolka Gedo ayaa booqday tuulooyin iyo beero hoos yimaada magaaladaasi oo ay saameysay fatahaada webiga Jubba ee halkaasi mara. webiga Jubba ee mara magaalada Geedweyne ayaa gabi ahaanba waxa uu baabaashay dalagyadii saarnaa beerahaasi. qaar kamid ah beeraleyda ayaa waxa ay ka waramayaan qasaarihii ka soo gaaray fatahaadii webiga Jubba uu ka sameeyay beeraha magaalada Geedweyne. beertaan joognana ay tahay soonaha Geedweyne shiidle dhammaan beeraha waxa ku dhuftay biyaha aad arkay. bismillaahir rahmaanir rahiim. anoo magaca Geedweyne ku hadlahayo san biyuhu xareed di hore beertu korbay ka gashay hoosna biyaha arkaysaan webiga ka soo galay. waxa la wixii saraca ku yaalay haday basal ahayd haday yaanya ahayd haday galay ahayd haday qara ahayd sarci waa tagay. maanta waxaan soo booqday gudoomiyaha Geedweyne Yuusuf Dirir baan soo booqday oo loogu yimid meeshan iyo ciidamadiisa oo nala bixiyay saad arkaysaan bahada wixii ugu dambeeyay batorri iyo maxay ahayd tuubooyinkii hadii sidaan way waxaan codsanaynaa in gacan nagala siiyo dhibka nagu dhacay wixii nagala caawin karo nagala caawiyo. dhanka kale gudoomiyaha magaalada Geedweyne Yuusuf Dirir oo maanta booqday beerahaasi oo la hadlayay warbaahinta ayaa waxa uu baaq u diray cid kastoo caawin karta gaar ahaan dawladda Soomaaliya qurba joogta Soomaaliyeed iyo hay'adaha samafalka ayaa waxa uu ka codsaday inay gurmad degdeg ah la soo gaaraan maadaama beeraleyda ay ka baaba'een dalagyadii markaasi u saarnaa beerahooda. webiga isu celiyay dhibaato aad u fara badan oo saameynteeda leh baa maaragtay ku dhacday dadkan dalagii beeraha ka soo baxay oo dhan haddii sidii walaalkeen u sheego kale sidii yaanyadii basashii qudaartii kala duwaneed cambihii maxaan ku raahdaa babaygii wax kaste oo ay nooc lagu beeran jiray maxaan ku raahdaa beeraha dalagii ka soo baxay sanadkan waa finish way. maanta inta waxaan fursad u helnay inaan soo booqano beeraleydanadii si aan ula wadaagno ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto qurba joogto kale dawladda federaalka dawladda dhexe Soomaaliya maxaan ku raahdaa hay'adaha deeq-bixiyaasha kuwa maxalliga intaba aan ula wadaagno dhibaatada ballaaran ee ku dhacday ummadaas. marka intaas ayaan maanta inta ku soo booqan u soo gurmanay waata hadda wixii u dambeeyay soo bixinayna tuubooyinkii ugu dambeeyay matooradii wixii ugu dambeeyay way waa qaybihii hadda ugu dambeeyay hore dadku maaragtay isugu gurmadeen degmada iyo maxaan ku raahdaa tuulooyinka hoos imaado ilaa 48 tuulo oo degmadan hoos imaado. dhibaatadaas ballaaran baa ku dhacday. waxaan marka mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad ba ku celcelinaynaa hadday beeraley tahay iyo hadday tahay intaba maxaan ku raahdaa caafimaadkii iyo wasaaradihii kala dunaa sida wasaaradda beeraha iyo midda musiibooyinka qaranka iyo waxoo dhan in ay qaybtooda ay ka qaataan si ay ummadan u aragto in ay higsi iyo dawlad iyo maxaan ku raahdaa gurmad ay leedahay. Maxamed Macalin warbaahinta qaranka degmada Doolow Soomaaliya.